dadkan waa jamaacadii masjidul qadar ku tukan jirtay dadkii kitaabaha ku akhrisan jiray weeye oo maarta cabanahayo meeshan isugu yimid maanta salaada duhur markaan tukanay waxaa noo yimid ciidamo biliis ah oo saldhigga degmada howlwada ka socda way i wadeen 7 saac bar ahayd ilaa 12 saac bar qol baan ku xirnaa aniga marka masaajidkan markaan waa markii saddexaad oo la xirayo 2010kii waxaa xiray 2010kii waxaa xiray shabaab oo dawladda la dagaalamahayay oo uu hogaaminayay ninkan hadda wasiirka oo maanta xiray masaajidka markuu xiray wuxuu ka dhigtay isbitaal intii dawladda ay dagaal kula jireen oo dhan isbitaal buu ahaa 2000 iyo markii laga saaray magaalada laga saaray baan ku soo noqonnay masaajidkii wada dhiig ah mutulaalka dhan uu dhiig yahay 2 maalmood baan dhaqayn qolo kastoo soo xirtana ma mahadinayn kuwa maanta xirana ma mahadin doonaan ilaahay idankiis 2022kii waxaa xiray nin la oran jiray Farxaan Qaroole Allah u naxariisto hadda waa dhintay wuxuu xirnaa hameen iyo maalin buu xirnaa ka bacdi didaal dheer oo la galay waa asna waa maartay waa la furay masaajidka maantay mar labaad waxaa xiray Roobow horta ma ismaan lahayn dawlad Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweyne ka yahay baa intay masaajidka wado 5 saac 4 saac xurriyadda ka qaad ismaan lahayn mudan madaxweyne mudan ra'iisul wasaare ninkaas markaa magacaabayseen kumaana farxin laakiin waa iska aamusnay waxaan u aamusnay dadkan waa dadkii dawladda jeclaa dawladnimada dadkii jeclaa kala dambeydka jeclaa nidaamka jeclaa way dadkan oo samaysnaa fawdo laakiinse waa filayna inuusan nadeynayn mudana madaxweyne waxaan ka codsanaynaa 24 saac madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa 24 saac masaajidka in loo furo 24 saac masaajidka hadaan loo furin oo warkiinu markuu dawladda gaaraan masaajidka loo furin waxaan ka codsanaynaa culimada Soomaaliyeed dariiqooyinka nin walba meeshiisa ahlusunna wal jamaaca nin walba meeshiisa inuu qorigiis ka soo qaato meeshaas masaajidka ayaana jihaad ku iclaaminaynaa annagu dawladda la dagaalimayno laakiin tuugaas meesha ay keensadeen oo awal dadkeenu soo laayay oo soo qarxiyay oo soo qaxiyay oo soo laqay waa la dagaalamayna asaga iyo wuxuu wataa waa la dagaalamayna haddii ilaahay idmo laakiinse annagu dad dagaal uma samaysin waxaan rajaynaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga codkeenu markii ay maqlaan in masaajidka naloo furi doono nala nabad gelin doona ilaahay ka rajaynaynaa haddii ilaahay idmo culimada ahlusunna wal jamaaca 24 saac masaajidka hadaan naloo furin nin walbow waa lagu soo socdaa intaan waa intii masjidka ku cibaadaysan jirtay kitaabaha lagu akhrin jiray haddii masaajidda laga soo xiro oo madaarinta laga soo xiro halkeen aadayna ma fadhiisanayna ma tuugaasaan uga tagaynaa dalka diinta ma tuugaasaan uga tagaynaa dhowr balaayiin dadkeena soo qarxiyay madaxweyne wada dusha noo shaaray waraabahaas waxaan ka codsanaynaa naga qabatid si ugu dhaqsiyaha badan naga qabatid haddii kaleeto dadkan waa dadkii ku jeclaa ummaddu kugu diraya ummaddu kaa fogeynaya dadkan maaragtay dadkii dawladnimada jeclaa waa dadkii madaxnimada jeclaa waa dadkii ku sacabinayay naga qabo tuugaas insha Allah ta'ala وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.